بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu bilaabaynaa maanta haddii ilaahay yidhaahdo qaybaha tooliska oo aynu ku qaadan doono qaybaha ugu muhiimsan cashirkeena waxaan ku baran doonaa tooliskan move toolka airportka rectangular mark toolka elliptical mark tool single row mark tool single column mark tool lasso tool polygon lasso tool magnetic lasso tool object selection tool magnetic wing tool iyo dhammaan mid walba wuxuu qabta ayuuna cashirkeena ku arki doonaa haddii ilaahay yidhaahdo maanta marka toolka ugu horeeyay waa move toolka weeye mar walba si aad u fahanto markaad ku aadiso u dhaweyso ayaa shaqadu qabta arki doontaa sidaad halka markaan sawirka ka aragto move toolku laba shaqo qabtaa isagana ugu muhiimsan badanaa mar walba isaga aad baad u isticmaali doontaa dhaqaaq walba ood samaynaysid marka shaqada koowaad uu qabtaa waxaa weeye move tool saad ka dareemaysaba magaca inuu kuu dhaqaajiyo shay markaad doorato inuu kuu dhaqaajiyo oo kuu dhaqaajiyo isaga ku awoodsiinaya marka waxaad awoodi kartaa markaad shay aad u baahato inaad meel ka kaxayso ood meel kala geyso inaad doorato marka hore move toolka haddaan tusaale kale mid kala doorto oon dhaqaaji israahdo ima dhaqaaqayo sababtu waxay tahay looguma talagelin shaqadu qabto maaha marka move toolka shaqadiisa ugu horeysa waxaa weeye in uu shay kuu dhaqaajiyo oo meel aad ka qaadid meel kalena aad geyso shaqada kale uu qabto waxaa weeye inuu kuu dooro shay inuu kuu dooro move toolka isaguna sidoo kale laakiin marka shay uu doorayo halkaas show transformka si aad u aragto shaygaas uu kuu dooray waa inaad aragtaa tusaale kale haddii kale xaggan layerska inaad aadii noqonaysaa xagga aad kasoo doorato marka halkaas tigta waa inay ku saarnaataa show transform controlka haddii imkaan taabto wuu dooran yahay oo waka uu jiidmayaa laakiinse haddana ma arko transformkii edgeskii ama wareegyadii ma arko si aan inuu ii dooran yahay in kale haddaan imka shay kale soo furno oo kale si aan ula fahno waxaan u jeedno haddaan kanoo kale kan soo furno midkan muraayadan iyada inoo dooran hadda waa ujeedaa inaan iyada qaadqaadan haddii kan oo kale hadda imka isagaa dooran laakiinse ma arkayno inuu inoo dooran yahay in kale xaggan layerska inaan ka aadnoon haba kolkan midkaan rabno inaan halkan kasoo doorano maahana tusaale kale haddaan kan rabo haddaan laptopkan rabo inaan isaga kasoo qaado oon isaga saa usoo jiijiido maahane marka mar walba si aad u awoodo waxaad dhaqaajinaysa inaad aragto oo tusaale kale imika anigoo laptopka raba inaan dhaqaajiyo kanaan dhaqaajiyey marka ma arkayo si marka waxa ii dooranaan u arko mar walba halkaas show transform controlskaas waa inay kuu saarnaataa tagta marka imika laptopka hadduu ii dooran yahay waa kaas hadduu muraayaduhu ii dooran yihiin waa kaa waan arkayaa hadduu ninkuu ii dooran yahay sawirka waa arkayaa isagaas sidoo kale marka shaqadaasuu qabtaa move toolku labada shaqo ugu muhiimsan oo qabtay waa in uu shay kuu dooro sidoo kale shay kuu dhaqdhaqaajiyo marka edgeskan haddaad arki weydo waxoogaa wax kale maaha halkaas show transform controlska iyo auto selectigu waa inay labadaba tig kuu saaran yihiin toolka labaad aan arki doonaa waxaa weeye mid walba fallaadhaa yar haddaad aragto toolka hoostiisa ku jirtay waxay ka dhigan tahay toolkan waxaa ku hoos jira mid kale marka si aad usoo saarto kuwaas waxaad taaban doontaa mouskaaga dhanka right click ayaad hal mar ku dhufan doontaa kadib uu kuusoo bixi doonaa wixii ku jira halkan labadaa tool baa ku jirta move toolka waa midka hadda aan soo aragnay artport toolkuna waa isaguna waa midkan kale oo hadda aan arki doono artportka isaga badanaa waxaad isticmaali doontaa marka aad design garaynayso ama naqshadaynayso shayada labada weji leh oo dhanka frontiga iyo back leh marka isagu waxaad samayn doontaa waa ujeedaa marka afartan qaybood buu lahaan doonaa isagu dhinacan pluska xaggan plus halkan kore plus marka waxay ka dhigan tahay haddii aad taabato dhinaca aad taabato ayuu kaaga soo saari doonaa page cusub tusaale kale iminka haddaan dhankan midig rabno inuu page cusub nooga soo saaro halkaa plus taa waan ku dhufanaynaa kadib artport kale inoogu dari doonaa halkaas haddaan xaggan hoose rabno halkaasaynu ku dhufanayna haddaan dhankan kale rabno halkaasaynu ku dhufanayna marka waa ujeeda hadda wuxuu inoo abuuray afar page oo kala duwan buu inoo abuuray oo hadda aan waxaan rabno ku naqshadayn karno marka isaga waxaad isticmaali doontaa artport toolka shay front iyo back leh marka aad samaynayso ama shay dhowr page ka kooban markaad samaynayso isagana sidoo kale artport toolka ayaad adeegsan doontaa marka toolkeena inoogu xigaa waxaa weeye waa rectangular mark tool rectangular mark toolka shaqadu qabanayo isagu waxaa weeye waa selections baa laisku yirahdaa intan dhammaantood isagu waxaa weeye markaynu rabno inaan shay u jarno afar gees tusaale kale haddaan rabno inaan sawirkan intan ka jarno intaasaan u baahannahay inaan ka jarno sawirkan marka afar gees ahaan buu inoogu jira haddaan imka move toolkii aan ku laabano oo intan waan qaadi karnaa meeshaan rabnaa geen karnaa hadda saasuu inoogu jiran yahay intaas waa ujeedaa haddii kaloo shortcut aad rabto inaad isticmaashooda ka qaadinna waxaad adeegsan doontaa control x hadadaho waka waa ujeedaa sawirkeenii intii hore aynu selectionka saarnay ayuu inaga jaray marka
haddii selectionka meel qaldan oo kale uu kaagaga dhaco marka isagana waxaad samayn doontaa halkaas select intaad tagto ayaad deselect oran doontaa, waad ka qaadi doontaa marka kadib adigaa marka intaad rabto aad samaysan doonto. Marka rectangular mark tool shaqaduu qabtay isagu waxa weeyaan dhahay inuu isagu shay afar gees inoogu dooro, saasoo kale hadda hadaynu wejigaa rabna inaan ka qaadno qofkan saasaynu uga qaadi karnaa. Marka toolka inoogu xigayay waa elliptical mark tool, isagu shaqaduu qabanaya waxa weeye inuu shay inoogu jaro si wareeg ama circle ah iyo inoogu jaro. Tusaale kale haddaan iminka wejigiisa intaas rabnaa inaan qaadano meeshaan rabnaan geysan karnaa. Tusaale kale marka hadda haddii aan u baahnay inaan ka dhigno profile caadiya saasuu inoo noqon doonaa, intaas ayaynu ka goosanaa hadda sawirkii. Marka waxaynu ku isticmaalaynaa toolka loo yaqaano elliptical mark tool oo dhan wareeg qaab wareega waxa inoogu jaraya. Toolka kale inoogu xiga waxa waaye isla selectionska ku dhex jiray waa single row mark tool. Single row mark toolkan isagu wuxuu qabanaya waxa weeye si aan u soo dhaweynaa si aad ila fahanto. Halkan isagu wuxuu samayn doonaa waa line kaliya isagu wuxuu samaynayaa, marka wax badan maaha isagu. Tusaale kale intaasoo kale aad rabtaa inaad trim ku samayso, marka waxaad isticmaali doontaa waa single row mark tool oo isagu hal line bas uu samayn doonaa. Waxa uu jaraya isagu waa intaas. Toolka kale inoogu xiga waxa weeye waa single column mark tool. Halkuu kii hore opposite ka halkuu kii hore uu horizontal ka ahaa uu chief ka ahaa, kani wuxuu inoo waxaynayaa uu inoo select gareynayaa line toos oo hal line kaliya ayuu inoo save garanaya. Isagu waa ujeedaa marka kaas kii hore waa vertical oo kani saanu vertical ahaan inoogu waxaynaya, kan kalena single column mark toolkuna isaguna waa vertical oo dhererkaas weeye ama istaagaas. Toolkeena kale oo aynu isticmaalayna waxa weeye waa lazy tool. Lazy toolku isaguna waa selection waxan baad ku dooran, laakiinse kan adiga hagaysidoo waad wareejinaysaa waa manual caadi ah. Marka tusaale kale haddaan inta saas dhaho iminka intaasuu inoo jaraya. Marka waxa weeye waa adigu adaa dooranaya intaad u baahan tahay markaas adiga gacantaada adigoo mousekaaga jiidaya ayaa isticmaali kartaa. Tusaale haddaan iminka aan ka dhaho marka waa ujeedaa qaabkaas weeye lazy toolkana qaabka loo isticmaalayo. Waxaa inoogu xiga polygonal lazy tool. Polygonal lazy toolkani isagu waa geesas fara badan, geesas badane kii loo yaqaano weeye. Isagu marka wuxuu samayn doonaa waxyaabo waxaa lagu jaraa badanka isaga markaad isticmaalayso qaabka aad u isticmaalayso aad u fahantay isaga mar walba aad isticmaalayso click baad ku siin doontaa mousekaaga. Marka adoon click siinin kuma samaynayo marka dad la raacdo si fiican buu kugu jari doonaa, laakiin isaga adoon click siinin dad saa u jiido wuu kula soconin marka dhinac walba wuu kula soconaya. Marka inaad click siiso isku day si uu kaaga hadho uu kugu istaago. Marka kaas qaabkaasu isaguna inoogu select gareeyay. Control D oo deselect aan dhahno shortcut aan isticmaalayna mar walba waxa weeye halkaas aynu tagnay selection markaad ka qaadayso waan naga sheegnay waa deselect ama shortcut loo isticmaalayo waa control D. Marka haddii iminka aan dhahno control D oo deselection ah. Marka kaasina waxaa polygonal lazy tool. Magnetic lazy toolku isagoo ka inoogu xigay isagu waxa weeye waa isaguna mid yar magnetic weeye oo tusaale kale isaga click baad ku siin oo isaga yar la raacayo oo waa mid aad u wanaagsan isaga laftiisu isticmaalkiisu, laakiinse waxay u baahan tahay inaad la yar raacdo ku yar dadaasho inaad u dhaweyso. Isagaa kugu hagaajinayo oo mid AI way generator ah. Marka adigu waad u dhaweynaysaa selectionka hadda tusaale si fiican buu inoogu wadaa waa ujeedaa. Marka isagaa kula raacaya magnetic maadaamuu yahay isaga ku dhegaya marka meesha aad doorato adigu. Halkii markaad keento dhinacii kale isagana saasuu u qaabsan doonaa. Marka backgroundka haddaan rabno inaan ka jarno marka hadda waxaynu oran doonaa control plus shift plus I oo dhanka backgroundka dambe rabnaa inaan nalaga jaro sawirkan naloo soo reebo. Marka control S marka control X haddaynu dhahno hadda backgroundka dambe saa ina looga jaray. Haddiise laakiin aynu dhahno inagoon oranin control plus shift plus I waxaa la jari doonaa sawirkan intaan aynu select garaysanay baa backgroundka laga jari doonaa. Tusaale kale control X haddaan dhahno waa ujeedaa sawirkii baa meesha laga dhex qaadaya. Marka toolkaas magnetic lazy toolna isagana qaabkaasaa loo adeegsadaa. Control D aan dhahno deselect ah. Waxaa inoogu xiga oo aynu isticmaali doonaa object selection tool. Objectigani isagu wuxuu kaga duwan yahay kii hore, wuxuu kuu doori doonaa objectiga markaas shayga aad haysato kuu doori doonaa. Waxoogaa isagu wuu raadin doonaa wuxuuna kuu doori doonaa marka objectigu si fiican kugu doori doonaa. Waqti buu kan yar qaadan waxoogaa, laakiinse si fiican buu objectiga kugu doori doonaa.
marka wakaa waxoogaa buu qaadanayaa cabaar marka laakiinse si fiican buu kuugu doori doonaa inkastoo hadda uu qaybahan ka tegey marka objective wuxuu u arko marka isagu dooran doonaa marka kana qaabkaasaa loo isticmaalaa object selection toolka. Quick selection toolka oo toolka inoogu xiga isagana waxaad isticmaali doontaa markaad background rabto inaad ka tirto isaga saasaad ugu jiidi doontaa. aad buu u fiican yahay isaga kan laftigiisu backgroundku markuu laakiinse waxoogaa uu hal shay yahay haddii meel qaldan uu adigoo isticmaalaya quick selection toolkan haddaad waxoogaa rabto inaad meel ka tirto kaaga dhacna waxaad isticmaali doontaan halkaa intaad tagto unbaad qaybtaas mains kasoo dhigi doontaa brushka kadib haddaad ku riixdo mouskaaga wuu ka tiri doonaa halkaas. Haddii aad u baahan tahay inaad ku dartana halkii unbaad plus kasoo dhigi doontaa waad kusoo jiidi doontaa marka isagu waxoogaa wuxuu u fiican yahay marka backgroundku uu hal shay yahay ayuu badanaa la adeegsan karaa kan. Hadda sawirkeeni wakaa qaabkaas uga dhex saaray control plus shift v haddaan dhahno oo isla halkan loogu bastigareeyo waa ujeedaa sawirkeeni waxoogaa wax saas usii badan muusan raacinin. Waxaa inoogu xiga magic wand tool isagana backgroundka unbaa lagaga jiraa badanka isaguna kani waxaa laakiin shooca aad buu ugu furayaa badankana marka aad looma adeegsado. Haddaan imika aan ka jarno control x aan dhahno qaybtaas wakaas mar walba waxbaa kaasoo raaci doona marka toolskaas baynu cashirkeena maanta hadduu ilahay raado qaybahaas aynu ku baran doonaa. Selectionska toolka ugu horeeya aan soo aragna waxa weeye waa move tool. Move toolka waxaan dhahnay wuxuu inoo qabtaa laba shaqo. Shaqada koowaad inoo qabtaa waxa weeye inaynu wax ku doorano marka markuu shay uu kuu doorayo tusaale kale dhowr shay hadoo kala duwan haddaynu soo furno kan marka si waxaan rabnaa sawir kale oo ku hoos jiraan rabnaa inaan ka qaadno marka waxaynu u jiidaynaa dhankaas si aynu u jiidno marka move tool kale haddaan soo doorto waxba iima samaynayo iima jiidi karayo shaqadaas ma waqtaba. Haddiise laakiin move toolka aan tago shaqadaas isagu wuu qaban karaa wuu jiidi karaa dhankaas wuu jiidi karaa sawirka kale oo kii kale ku hooseeyey isagana waa kan waan soo jiidi karnaa xaggan baynu soo jiidi karnaa. Marka move toolka adeegsigiisa iyo waxa uu qabto inaad aad u fahansan tahay baa lagaa rabaa maadaama uu midka ugu muhiimsan uu yahay. waxaynu sidoo kale aynu sheegnay shaqada kale uu inoo qabtaa inay tahay inuu inoo select gareeyo shay inoo dooro marka select gareyntaas qaabkan oo kale kugu select gareeyo shaygaad rabto laba qaab waad u soo select gareysan kartaa oo shaygan imka sawirkan haddaan rabo inaan soo doorano halkaas layerska waan ka aadi karnaa oo saas waan usoo dooran karnaa. Laakiinse inagoo halkan canvaska ama documents canvaska workspace ka joogna hadaynu saa u taabano isagana wuu inoo soo doori karaa. Laakiin markaasoo kale waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inaad weydo arki weydo isagoo kuu dooran aad weydo markaasoo kale waxaad tigta ku saarnayn halkaas show transformka tusaale haddaan imika taabto uu dooran yahay oo waan jiidi karaa uu ii dooran yahay oo xaggaas layerska waad uga jeedaa laakiinse hadda xaggan ma arkay inuu dooran yahay in kale waan iska jiijiidaya un marka mar walba halkaas inay tigta kuu saarnaato isku day show transform si aad u aragto waxa markaas marar badan waxyaaba fara badan oo tusaale oo kale hadda haddaan kana soo furno dhowr shay oo kala duwan baa ku furnaan karaya marka shayadaas si aad u kala aragto marka waa inaad uu kuu dooran yahay transformka midka marka aad dooranayso aad qaadi rabto. Haddaan shimbirtan oo kale rabna inaan qaadno hadda aan xagga u durkino inaan iyada haysanayo in kale oo dee sawirkaas oo kale aynu iska durkin karnaa hadduusan inoo doornayn ama tigta inoo saarnayn show transform controlskaas marka mar walba kaas tigta kuu saarnaado. Waxaynu sidoo kale soo aragnay artboardka oo aynu dhahnay isaguna waa halkan uu ku hoos jiraa move toolka hadda si aad usoo saarto waxaad samayn doontaa baan dhahnay right click ayaad mouskaaga siin doontaa marka halkaas artboard kaaga soo bixi doonaa marka waa ujeedaa mar walba isagu wuxuu yeelan doonaa edgeskan aad kaga soo dari kartid marka waxaa la isticmaalaa baynu dhahnay isagana mar walba badanaa marka la sameynayo waxyaaba dhowr page ka kooban ama front iyo back waxyaabahaas aad loogu isticmaalaa artboard toolka. Marka waxaa inoogu xigan soo aragnay selectioniskan rectangular mark tool oo aynu isaga kusoo sheegnay inuu inoogu jarayo shay qaab afar gees ahaana tusaale kale hadaynu si aynu u fahanno inoo kale aan iska soo xirno shimbirtan baa waxaan u baahanaa marka qaab yaroo afar gees inaan sawir yaroo yar inaan ka jarano marka waxaan samayn karnaa intaynu intaasaas dhahno shimbirtaan u baahanaa inaan intaas ka jarano kadib waxaan sameynaynaa backgroundka dambe haddaad rabto inaad ka jarto waa inaga sheegnay waa control plus shift plus I baad oran kadib xagga dambe oo control x haddaad dhahdo backgroundka dambe inta ka dambeysa iyada ayaa lagaa jari doonaa. Laakiinse haddii adoon oranin control plus shift plus I adoon oranin aad keliya dhahdo intan aad selectiga lagu saaray un aad rabto waxaa laga jari doonaa intan hadda selectionka saaran oo control plus x haddaan dhahno intii shimbirtu ay ku jirtay baana laga saari doonaa. Control shift v baad oran haddii aad u baahan tahay inaad iyadoo keligeeda soo ceshto oo marka qaybtii kale aad ka saarto saasna waad samayn kartaa. Marka toolkaasina isaga waxaa loo isticmaalaa baan dhahnay inuu qaab inoogu jaro afar gees ah. Elliptical mark tool isaguna waxaan dhahnay tusaale kale intaa yar baynu ka rabnaa wejigeeda kadib aynu control x dhahno control shift v
waa ujeedaa shimbirta inteedii yareeda wejigeeda hore ayaynu haysanaa oo isha kaliya ahayd. Marka elliptical mark tool saasaa isagana loo isticmaalaa. Single row mark tool isagana waxaan soo sheegnay inuu yahay tool loo adeegsado marka aad rabto inaad line kaliya aad samayso, laakiinse waa horizontal way kani. Haddii aad u baahan tahay linekaas oo isagana inaad samayso trim markaad samaynayso iyo badanaas markaasaa la isticmaalaa. Single column mark tool isaguna waa vertical baan halkii hore ka ah horizontal, kanina vertical buu noqonayaa. Waxaynu sidoo kale soo aragnay lasso tool oo ah mid aad adigu adeegsanaysid. Tusaale kale hadda haddaan isticmaalo waa mid adigu aad samayn karto gacantaada ku wadan karto manual way. sidoo kale waxaan soo aragnay polygonal lasso tool oo 4 geesle ah oo isaga laakiinse qaabka aad u isticmaalayso waxaynu dhahnay waa marka aad kolba click siisid ayuu ku shaqayn doonaa markaas. Marka haddii aad laakiinse aad adigoo wata aad saa u jiidid wuu kula socon doonaa baynu dhahnay. Marka inaad marka qaabka u isticmaasho isaga isku day. waxaa inoogu xigay magnetic lasso tool oon dhahnay waa mid isagu magnada oo kaliya isaga waxaad samayn doontaa shayga marka aad rabto diamond doorayn hadda kan aan soo doorano kadib marka isaga click baad siin doontaa isaga, laakiin waxoogaa marka waxa aad jaraysid ayuu qaab yar magnet ah u dhigi doonaa oo isaga ku raaci doona. waxaan soo aragnay qaybtan oo kale sidoo kale object selection toolka oo isaga dhahnay waxaa loo isticmaalaa markaad shayga aad dooranaysid waxoogaa aad buu muhiim u yahay kaasi markaad background ka jarayso. Sidoo kale waxaa muhiimsan markaad background shay ka jar rabto dhanka dambe quick selection toolka kana sidoo kale isagana magic wand tool isagana waxaa loo isticmaalaa baan dhahnay marka shay laga jar rabo badanka isaga laftiisu aad buu muhiim u yahay. Waxa aad jaraysaa markuu backgroundkiisu uu the same yahay oo hal color uu ka kooban yahay. Marka cashirkeeni maanta aan ku baranaynin toolska qaybahaas aynu ku soo qaadanay halkan aan ku ekeenay hadduu ilaahay yiraahdo. Qaybaha kale muhiimka la isticmaalana iyagana cashiradana kale hadduu ilaahay yiraahdo ku arki doonaa. qayb badan baan idin rajaynayaa inaad ka faa'iidaystaan isku daya. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.